salaanta bacdigeed waxa la yidhi xigmadda waxa laga helaa 3 nin nacasa iyo nin kibrey iyo nin waalan xigmaddaannu ka helay buur madow iyo suldaan xasan xigmaddaannu ka helay aad iyo aad baannu ugu mahadnaqaynaa waa mahadsantiin labadiinnuba suldaan maxamed muuse faarax dayr hadalka uu yidhi annagu wakiilnagaga ahaa haddii aannu nahay beelaha garxajis annagu wakiilnagaga ahaa aad iyo aad buu ugu mahadsan yahay intaa waxaa weheliya waddanka nimanka madaxdhaqameedka ah ee magacii Soomaaliland u bixiyay jeegaanta waxaannu leenahay aad baa u mahadsantiin waxaa noo sheegteen sirqa filayd baa si wanaagsan xuubka uga qaadeen anugu 3 nin ka kibrey iyo ka nacaska ah iyo ka waalan kala sheegi maayee xigmad badan baanu idinka helay mar labaad aad baa u mahadsantiin waxaan leeyahay maanta xukuumadda ka jirta Soomaaliland waxa la yiraahdaa jeegaan baa la yiraahdaa sirtii baa sheegtay horena xantaanu u maqlaynay jeegaanta jeegaanay dalka ku filow dinkaana bilaabay waxa wax ka qaban waayay hadalladii caynka ahaa muuse biixi oo maanta madaxweyne sheeganaya intuu dhageystay buu suldaankii u jawaabay waaran u soo gooy maxamed kaahinna waa la yaqaanaa barigii hore dagaalada xagga dambu ka gali jiro abaabulku yaqaanay laakiin farantanka muu gali jirin waanu seexannay muddaannu hurudnay waanu toosnay ilaahay wuxuu ka dhigayaa sidii uu ka dhigi jiray buu ka dhigayaa Soomaaliland waa xiniyo dabadood annagu xiniyahaanu ahayn xiniyo dabadood baa maanta noo faanay raggii aanu kursiga ku xoraynay ee aanu cadawga ka dhicinay ee xabaalaha lagu guray ee lagu aasay cagafiyada ayaa maanta hajabaya sulaadiintiisa hanjabaysa oo ay sir xuubka ka qaaday aanu leenay jeegaantiinnan fashilantay ee sirteedii aanu helay ka xoog roon baanu leenay wallaahi Soomaaliland haddii la isku tixgelin waayay inaan bariisaan ciid lahayn lagu cunaynin bismillaahir rahmaanir rahiim maanta halka waxaanu ku haynaa shirka jaraa'idana ku haynaana wuxuu quseeyaa amba ka hadlaya amba jawaab bixin u yahay waaranka loo soo jaray suldaan maxamed muuse faarax dayr jawaabta hor ka bixinayna wuxuu yahay suldaan buu jawaabay suldaan hadlay ayuu jawaabay suldaankii hadlay fidnada kiciyay iyo kuwii ka sii horeeyay fidnada kiciyay iyo wixii weligoodba soo hadlayay ninna afkiisa waaran loogba soo jarin laakiin maanta waxa ugu bilow nagu hadda maanta cunadii nagu hadda timi suldaan la afkaagi baa lagu xirayaa oo dadkii aad u jawaabtay suldaankii aad u jawaabtay ayaa lagu xirayaa oo aqliga ka weyn waxaan leeyahay ninka xirayow walaa in yar lagama aamusnayn ama in yar laguma eegayni eegmadii aamuskiiba wuu dhamaaday awaala suqaar buu horjooga u kaalin ka imanayo qodobka labaad wuxuu yahay waxay dadku isweydiinayaan ay leeyihiin muuse biixi madaxweynaha muuse biixi waa madaxweynaha sheegaanta ayaan nagu naqaanaa sababta nagu naqaanaa waxa weeye 5 meelood oo khayriya u istaagay isagii maxamed kayma istaagay 5 meeloodba waxay ka yiraahdeen wadaniga wixii taageersanay waxa laga leeyahay Soomaaliya laga xukumo wadani boqolkiiba 3 iyo 4 baa inay Soomaaliya laga xukumo wadani Soomaaliya laga leeyahay wadani Soomaaliya lagu daraya muuse ku lahaa shalay wadani weeye Soomaaliya lagu daraya maanta sidoo wixii lagu noqon karaya ma isweydiitay isagu موسى هذا الكاتبي في حال كبحي وقتها سوماليا بتي سوماليا بتي هذا دور سيد بحيرنا نقطه لكن قصر كل اسلام قصر كل اسلام لانه قصر كل اسلام والله ينقى تجيب إذا كان وحنا لي محمد كاهنو كل يوم 9 بقول يلا بي 9 شكي تقال كتب بعك دي ود قرنيسه
1929 kaad berbera ka ridood garanaysa 1929 kaad cirgaaba ka ridood garanaysa 1994 kaad hargeysa ka ridood garanaysa 1995 kaad burca ka ridood lagu bariye lagu lama taaqixin aan lahayn loo saaxdo daqada xidha suuqad garanaysa amaanka Soomaaliland inta wad ku socdaa amaanka Soomaaliland inta wad ku soo ciyaaraysa ما ترى الله قاعد يقول شركة أمانك هذا شو كوا تصدق أمانك أنت كوسو تمنيسي أنت لو قدو قادناي أنت لو ويجاي ما ترى الله قاعد يقول شركة أمانك بعض يسوق هذا فريد يسوق هذا وحنا أنت أكو دريا عن راعينا إياه بروح روح الليلين أما ركوه هسه تقال كذا عدنا ذي ninkii doonta ha iska daafaco shabaab ciidantii waa maanta dagaalka ka dhacay maxay ahayd meeshii magaceedii tukarra ka dhacay ninkii doonta ha iska daafacday ninkii doontay ha iska daafaco Somalilandna duqaadka Ismaaciil Sheikh Isxaaq bay ku taagantahay teelana looma dhigin inay baabaadayeen burburto waa loogu talagalay أنا قاعد أقول لك باتوا نقدم هذا هاي كنت بيصير يجي ندير هاي كذي أنا قاعد ما تقول نقدم هاي ما حتى تري سعدي تسوي حلو بس هل كي يكون بيسو يعني كي يدبر سطو هلا ولا تشوفه أو يسوق صور شيء واحد ما تدل كتاعن إيه سمعنا يو إيه أنو كي كاري لعن هاي يعني هل كانوا وحلا هاي بيجي مثلا جاري ninkii suuqiyaada hadlayna war ka daay halka arinku ma aha in la yiraahdo waa xirantado weerar loo soo gooyo waa ku sugaynay inta naama aamusayna ama xishoonay sidii uu sheegay labadii oday iga horeeyay yaa arrinka dhameeyay sida ay yiraahdeen baanu ku raacsanay kulana soconnaa mid yar iyo mid weyn ba diyaar baanu arrinka ugu nahay talaan waa hadalkii badin maayo waxaan hadalka ku soo gooynayaa aan leenahay ninka hadlay ninka la hadlay hadalkiisii daba raacay waaranka loo soo gooyay ninka waaranka loo soo gooyay muu oran waxa ka dambaynaya waxa ka horeeyay muu oran ha waanu ku eegnaa anaga meesha ku eegnaa anaga waxa leeyahay ka taagan yu waxa sameynaya ragga waxa sameynaya waraaqa googoynaya waanu la joognaa war kama ogolin soldaamayada إنما يريد الله صادر الله حلو بل واحد كذا ما يريان ابنه وحنا هذا الكيف كل شيء قلنا لا ما قلنا ما أنت واحد بدل ما نعمستي واحد بدل ما نحشورين واحد بدل ما نوحيلالين وحيانو إلالين واحد نقدين ما نقول تعرف يكون نقدين رجي أنو إلالين هل كان واحد يسقوني ترى أنو كم وشينينو سلطان محمد موسى عنه جوابتي وكبحيي هذا الكي سلطان حسن سلطان عبد الله جوابتها وسلطان محمد مسعود كبحيي أنغو نغو متلا أنغو سلطان نويه وانا نكو تاغيرسنه ninka yidhi maanta hala soo xidho afar xiniyoodli haw yimaado ay arki weydeen waa joogi weydeen khamaar kasto aad soo dhigteena faa'iidadeedii waxba idin kordhi waayay anu example kan idin haya nin waalan baan idinku mataliya 7 dagaal baad rideeno sokeeye war miyadan xisaabinay qof khasaariye faa'iido uu xisaabiyaa wuxuu soo baxay miyadan xisaabinba wax la yidhi ninka waalane marka la daweeyay uu dawada muddo qaato marka la tijaabinay inuu ladnaaday fursad dolasho la yiraahdaami dadninkan dawadii waxba u tarin uu ku wadaa oo xagga kale ka baxaan ka soo miirsadina wuxuu dhawarde bahashana ay tiraahdeen dhaami way daloshaa idinku 7 dagaal sokeeyaad rideeno wili fursad dolasho dhaaminaysaan waa nimankiina isba weydiinay maxaad faa'iideen dib waxaan doonayaa in aan anigu laba qodob ka hadlo ugu horeyn odayaasha waa la maqlay hadalkoodii waan kula wada soconaa mid maqan iyo mid joogaba waa mid dad badan ay kaga wakiil yihiin maaha mid iyaga uu ka dhashay waan kula soconaa
suldaannimada maxamed muuse cune faarax waxaa ku badan Somaliland rag fara badan oo ciidamo caleema saarin oo ciidamo oran suldaan buu loo yahay laakiin anagu waxaan leenahay anagu suldaan loo yahay yaa haysta qodobka labaad ee kale waxa weeye waa maxamed kaahin gaarigii u horeeyay taayirka xadka soo saaray kaygu ahaa halkii 7 habeenimo SNM oo dhanbi ka soo gudbaysay labadii gaari ee ugu horeeyay ee la soo diray baa ka mid ahaa casarkii ee gudaha u soo galay ayaa ka mid ahaa adad 7 casho kadib baad soo gashay burco gubay oo yiri dawladdu la dooni mayno yiri wasiir difaac baa laga dhigay reerkii 7 wasiir buu ku yeeshay waxaana tii dawladdu la dooni mayno taana dawlad sheegaare dooni mayno bar kulaan maanta wax badan kama tarin ee waxa ay waxtarkaaga uu noqday wixii ay ku dambeysay aynu ogeyn odayaal shacab baana nabadda ku soo dabaalay oo nabaddan ka dhigay oo maanta kursiga kugu fariisiyay ee tacabaad leedahay kubaad fariisan kursigan waxaan ku sheegayaa war haddii maalinta xil lagu dhiibaba aad gubto burco oo qori dabla ay xilka lagu dhiiba uu noqdo waa ayaan daro iyo shaabad xun oo adiga kugu taala maanta markii afraad baad doonaysaa inaad gubto soo maaha warka aad soo geysay waxa weeye in aad maanta markii afraad burca gubto weeye de warka aqbalay laakiin maanta dabka aad ku dhajisaa wallahi qaboobi maayo oo lagu wada shidan maayo haddaad maanta dab ku dhajiso inaan dib loogu wada shidanayn taa ku talagal talabaad waxaan leeyahay ummadda dalka joogta fidna la kiciyay fidnada la ragii kiciyay waxba laga ma qaban ragii jawaabayna waaramaa loo soo gooyay ummadoo dhamay taabarka ka ahaato waxay dalka Soomaaliland ka biyo uga soo baxaan khaas ahaan gobolka Maroodi Sheekh iyo gobolada ku dhow annaga iskale bay yiraahdeen meel kalena halkaan uu mariyay mooyo la marin baayay bay yiraahdeen taas jawaabteedu waxa weeye in biyo hargeysa lagu cabbi waayo haba yaraatay biyaba lagu cabbi waayo baan kaga jawaabaynaa waxaanu leeyahay halkii hay'adaha iyo dawladaha inagu caawiyay ceelasha biyaha iyo buurihii ay yiraahdeen hal la saaro waa naasaab loode hadii la saari waayo kuwa jawaabtoodu waxa weeye inaan hargeysa biyo lagu cabbi doonin oo qaybina aan cabbi doonin qaybina waligeed aan u manaan doonin waa taasana lagu ceebaba dadka reer hargeysa waxaanu leeyahay war nabad baanu doonaynaa fogdheero nabad baanu doonaynaa kuwa soolo nabad baanu doonaynaa kuwa salaamu nabad baanu doonaynaa kuwa awdalo nabad baanu doonaynaa kuwa saaxil nabad baanu doonaynaa nabad baanu laanay waa aragtaan waxa dhacaya waa aragtaan wixii buur madoobiyay waa ogeydeen go'aan baa 7 cashe ugu horeysay Siiraayo uu qabsaday aanu gaadhnay yaani ka 9 jirka juuq loo oray yaa la caaridin halaala shaqeeyo tii waxay noo dhashay yoobkii ugu dambeeyay uu ka degayay war way baqarayaan waa laga baqarayay idinku faraha baruura ku sidataan baruurihii waxa iska tuuray in kale ilaa Suldaan Xasan ayaa tuuray bal wuxuu ka dhaxlaabay isagu eegayna dagaalka waxa bilaabay nimanka lagu yiraahdo Suldaan Xasan iyo Suldaan Buurmadow ayaa dagaalka bilaabay markay bilaabeen ninka Muuse Biixi la yiraahdo ee madaxweynaha sheeganaya iyo wasiirka arrimaha gudaha 20 sanadood waxay meerinayeen inay hubka iyo madaxtinimada ay gacanta ku dhigaan inta markay meerinayaan inta maanta ay gacanta ku hayaan maanta ayaanu dagaal ka xumaanin ilaa harti ilaa gadabiirsi ilaa iyo garxaajis inta baa ku qaadaan